Wararka laga helayo magaalada Galkacayo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in xalay koox dhalinyaro ah oo ay tooray ku weerareen mid ka mid ah gabdhaha ku nool xaafadda Garsoore ee waqooyiga magaalada Galkacayo. Kooxdan ayaa gabadha oo ka soo baxday salaada Taraawixda waxay toorayda ka geliyeen dhuunta, waxaana gabadha oo lagu magacaabi jiray Nimco Cumar Shire Xuurey ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerarkaas. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegay in raggii ka dameeyay falkaas ay goobta ka baxsadeen dilka kadib, waxaana goobta tegay oo markii hore dhaawacan goobta uga qaaday ciidamo ka tirsan booliiska Puntland balse isbitaalka ay ku geeriyootay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka gabadha yar. Iyo sababta loo dilay ha yeeshee haweenka kale ee habeenkii aadi jiray salaada Taraawixda ayaa waxa ay sheegeen inay cabsi soo wajahday. Mas'uuliyiinta maamulka magaalada Galkacayo ee Puntland weli kama aysan hadlin falkaas. Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle, telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Garowe.